ninka maxaa loogu baneeyay afar xaas gabadhina marka hal nin magacaweelo isagana ninka maxaa afar loogu baneeyay waa masaladii haddaynu ka hadlaynay ilaahay baa ugu talagalay ninku inuu afar dooni karo gabadhana mid kaliya tankeedu kama badna taana waxaa ku tusaya waxyaabo badan baa ku tusaya hadda waxaynu ka soo hadlaynaa raggu inay dagaalay galaan ama mid lilaahi ha noqdo ama mid qabyaaladeed ha noqdo ama mid kale dagaaladay ku dabar go'aan raggu waa yaraadaan dumarkuna waa bataa taasi waa masalo way ku kala duwan yihiin raggu way ka baahi badan yihiin dumarka duruufaha imanaya inta badan dumarkay ku yimaadaan ninku markuu hal xaas leeyahay bil kasta 7 cisha la yidhaahdo xaaraan bay kaa tahay oo dhiiggii caadaday leedahay dee ninkii dareenka lahaa ama awoodda lahaa dhibaatay ku tahay isbuuc dhan iska sug culays bay ku tahay ninkii markaa dee inuu mid labaad guursado ayaa xala gabadhu markay wallacdo sida dumarka qaar xaalkoodu waxaa laga yaabaa galmada inay dhibsato waxaa laga yaabaa inay xanuunsato dhowr bilood baa laga yaabaa ninkaasi inaanu u dhowaan karin waxaa loo baahan yahay badiil baa loo baahan in ummadda nebi maxamed la badiyo nebigu aad buu u gubaabiyey calayhi salaatu wasalaam badnaanshihiina wuxuu ku imanayaa raggu inay guur badan sameeyaan inay guur ka badiyaan ragga ilaahay wuxuu iskaga abuuray hanqaltaag ninku isagoo xaas leh xalay isagoo gabadh aroosay oo subaxii ama arooska laftiisii dumarkii ka shaqaynaya buu odhan tira xaggayga dhaaftay talo waa ilaahay waaba aroos damac baa ku bilaabmay gabadhu hadday guursata ninka nin ugu liita way iskala tacaalaysaa way iska iimaansanaysa ilaahay baa ugu talagalay ka ugu foosha xun haddaanay dee xanuunsanayn fidradeedu haddaanay isbedelin haddaanay fidradeedu isbedelin ninka ay guursatay bay iskaga koobantay walidaalika waxay yidhaahdaan gabadhu nafteeda waxay siisaa qof ay ka heshay ayuunbay siisaa mar hadday ku qanacday ay guursatay bas wey ninka dunida ugu aqoonta badan ka ugu fariidsan ka ugu deeqsisan ka ugu quruxda badan ka ugu sidana hadday halkaa la dhigo shaqo kuma leh way jiraan dumarka qaar oo iska han badan oo gabadhii Faatima binti Qays hal mar bay odaygeedii iska soo taagtay Thabit ibn Qays riwaayadka qaar waxay sheegayeen waxay aragtay baa la yiri 3 nin oo soo wada socda oo ninkeedu bartamaha ugu jiro markaasay nimankii kale intay isu qiyaastay bay ka bood waxba uga soo baxay ay xamili weyday nabiga u timi calayhi salaatu wasalaam waxay tiri nabi allah ninka la yiraahdo Thabit ibn Qays diintiisa iyo dabiicadiisa midna ku caraaran maayo laakiin waxaan diidayaa anoo muslima inaan xuquuqdiisa ku gaaloobo ninka layma tusay nabigu wuxuu yiri mahar maxaa ku heshiisay beer buu siiyey bay tiri wuxuu yiri beertii ma u celinaysaa haa bay tiri waa beer iska dhan timir iyo nicmo ay ku sugan tahay beerta waa ka tanaasulaya ha qaato hay dhaafoon way iska jiraan dumar noocaasa xaalada kooban laakiin ragga hanqaltaagu ku baday waxyaabahaas oo dhan iyo waxyaaba aanan soo koobay waa ta keentay raggana in afar loo baneeyo dumarkana waxa weeye mid kaliya maca dalika shuruud baa lagu xidhay cadaalad baa lagu xidhay awood baa lagu xidhay waxyaabo badan baa lagu xidhay marka waxaan leenahay dhib male insha Allah ta'ala